suuqyada magaalada Jowhar ayaa laga dareemayaa sare u kac ku yimid maciishada. Ganacsatada magaalada Jowhar oo makarafoonka la dhaxqaaday ayaa waxa ay iga warmeen sare u kac ku yimid raashinka qudul daruuriga maadaama dunida uu saameeyay cudurka COVID-19. ganacsigeena saameyn badan ay ku yeeshay dadka bini'aadamka oo isku dhaxnool yahay dadka dibadaha jira dadka gudaha jira lacag ay u soo diri jireen sida qaaradda Yurub qaaradda Ameerika Afrikada qaar Sacuudi Carabiya Aasiya lacag ka imaan jirtay boqolkiiba 60 in ka badan dadka waxay ku nool yihiin Soomaalida lacag dibadda ugu yimaado marka waxa dhacday lacagii dibadda inay imaan waayaan familladii ay dhan macnaha biilkii hore biilka lagu dar biilku ilaa 3 bilood aan ugu celcelinayna marka hadda wax yar waxa la dareemaa in wax yar kala furfurmeen oo sida dadka cabsida weynada cudurka laga qabay inay xogo yaraatay marka ganacsiga hadda ma sha Allah hadda xogo inuu dhaqdhaqaaq bilaa u maleynay laakiin saameyn badan aad weyn uu yeeshay waxa isbedelay loorka bariiska waxa la siisan jiray bariiska caadiga ah oo dhuudhuubka waxa la kala siisan jiray $28 hadda $30 oo maraya sokorta waxa la gadi jiray $27 meelahaas la gadi jiray $8 hadda waxay maraysaa $30 saliida waxa la kala iibsan jiray hadda inkastoo saliida ay soo raqiistay hadda saliida way raqiisay maraysaa inkastoo ay qaashay corona evel xoog uga hadda way soo raqiisay saliida jirkaankeeda $20 la kala siisanaya sheeg waxa ku leedahay cabitaanada iyo waxba ugu fariistay cabitaanada coronavirus cabitaanada sida faantada Sprite iyo Coca iyo waa gadin jireen qaad ay ma jireen dadku cun jireen marka biyaas xoog socodkooda way yaraaday wallahi ma sha Allah ganacsiga maxaa la si fiican ay kala socdaa corona waa maxaa la ganacsi aad u sii dhicid maano marbixig si dambe waayo waxa keenayo wadamadii waxay ka soo gali jireen oo maxaa la corona oo ka kacay oo wax ayna soo galin Soomaaliya wallahi wax badan oo iska bedelmaano shaygiyo wax raqiis lagu ogaa wax badan oo ku darsoomay maxaa la soo keenayo maxaa la shayga la gada jir $3 hadda $5 $6 la gada maahno sidoo hore wax badan oo ku darsoomay hadda magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Yuusuf Maxamuud kamid ah ganacsatada reer Jowhar alxamdulillah hadda boqolkiiba boqol cudurka corona horta inkastoo aad uu qiimo sare oo sameeyay mobiladii iyo wixii la gaday hadda laakiin ma sha Allah intii hore waan ka fiicannahay inkastoo sidii horena aan la wada dhamayn qiimaha dhimis hadda aad u fiican la helay mobiladina way imaanayaan inkastii ay wixii qaali ku imaanayaan insha Allah Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay naga baabi'iyo oo Ilaahay nagu fidinin mid ka mid ah shacabka ku nool tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ayaa waxa uu TV-ga Horyaal uga waramay saameynta uu ku yeeshay caabuqa coronavirus. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Magacaygu waa Maxamed Cabdi Nuuxow degan tuulada Mooyko oo hoos timaada gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Jowhar. Barnaamijka marka hor u sii dhaco Caliyow cudurka coronavirus wax kasta oo Hirshabeelle ama degmada Jowhar ah cirka isku shareeray tusaale markaan ku siiyo hadda iidaan ugu soo dhaweeto oo soo fur dharka waxaan ku gada jirnay lacag iska yar oo naxariis badan laakiin hadda wax kasta waa khaaleen dharkii khaali waa raashinkii afurka khaali waa haye hadda aan beeraley ahay Jowhar deganaa gaar ahaan tuulada Mooyko waxaan tacbaa galeeda sisinta yaayiga diirta tanaga hadda naaw kula hadlayo aniga Maxamed Cabdi Nuuxow uuti yaaya ii soo go'do oo beertayga ka kaysado suuqa kaysto mar hore waxa laga siisan jiray 50 laakiin hadda kula hadlay Caliyow tanaga yaayida 250 laga siistaa galeeda ku soo wax kasta oo adduunkii oo dhan khaali oo Jowhar mar hore wax way suuqa Xamar Muqdisho waxna imaanayeen hadda waxay taagan tahay wax kasta waxaad cisho oo beesida beeraley aan nahay ganacsi oo kale ninkii Jowhar joogo ganacsiga ahaa wixiisiga uu haastaa Muqdisho waxa ay soo dagaay ma jirto ani beeraley ahay wixii beerta iga soo go'o suuqan kaysta mar hore raqiisay ahayd hadda wixii oo dhan coronavirus la keenay adduunka oo dhan mujtamaci oo dhan wixii oo dhan waa khaaleen waxa keenayo cudurka awgiisa keenaa wax kasta inay sar u kacaan ganacsatada magaalada Jowhar ayaa badeecada waxay uga timaadaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Hirshabeelle ayaa waxa ay ka mid tahay deegaanada uu haatan ku sii fidayo cudurka coronavirus dhinaca kale shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa ah kuwa aan u nugleyn talooyinka ay bixinayaan hay'adaha caafimaadka
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa horay waxa uu bandow ku soo rogay goobaha ay isugu yimaadaan bulshada balse maqaayadaha magaalada Jowhar oo ah goobaha ay inta badan isugu yimaadaan shacabka ayaa ah kuwa si maalinle ah ay isugu yimaadaan shacabka magaalada Jowhar amarka madaxweyne Waare ayaa ah mid aan ka dhaqan gelin magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle Mahad Axmed Cali Sow Real TV Jowhar